ciqaabta kufsiga ee dalalka adduunka. 1 China wadanka Shiinaha waxa lagu xukumaa ninka wax kufsaday dil toogasho ah ama xaniyaha ayaa laga saaraa. 2 wadanka Sacuudiga ninka wax kufsaday waxa lagu fuliyaa shariicada Islaamka dadka hortooda maalmo gudahood marka xukunkiisa la qaado. 3 wadanka Mareykanku waxa ay leeyihiin laba sharci oo ah Federal Law iyo State Law. haddii kufsigu uu hoos tago sharciga federaalka kufsadaha waxaa lagu xukumayaa dhowr sano ilaa iyo 30 sano oo xabsi ah. 4 Ruushka wadanka Ruushka ninka wax kufsaday waxaa lagu xukumaa 3 sano oo xarig ah. haddii dhaawac weyn uu gaaray dhibanahana waxaa lagu xukumaa 10 sano ilaa iyo 20 sano oo xabsi ah. 5 dalka Masar ciqaabta kufsigu waa in xarig qoorta loo suro oo la daldalo. 6 Afghanistan wadanka Afghanistan ninka wax kufsaday madaxa ayaa laga toogtaa muddo 4 cisho ah gudahood. 7 Hindiya waxay adkaysay ciqaabta kufsiga wixii ka dambeeyay sanadkii 2013 markii sharci kufsiga liddu ku la gudbiyay waxayna ku xukumaan 14 sano oo xarig ah marar aan badnayn daldalaad ama xabsi daa'in. 8 Faransiiska wadanka Faransiiska waxaa lagu ciqaabaa qofka wax kufsaday 15 sano oo xabsi ah haddii dhaawac halis uu geystana waa xabsi daa'in. 9 Iiraan wadanka Iiraan marka la joogo ninka wax kufsaday waa la daldalaa inta xarig qoorta loo suro. 10 North Korea gudaha wadanka North Korea ninka wax kufsaday isla markiiba waxaa toogata koox askar ah. 11 Norway wadanka Norway waxaa lagu ciqaabaa qofka wax kufsaday 4 ilaa iyo 15 sano iyadoo ay ku xiran tahay hadba sida dhibta iyo dhaawaca uu geystay ay tahay. Soomaaliya marka la joogana ninka kufsiga geystay ayaa loo dhisaa gabadhii uu kufsiga u geystay inta badan taas oo ka dhigan in isagii la abaalmariyay oo uu sidaa ku mutaystay caruusnimo gabadhiina la dulmay. adduunka meel kale oo ay ka jirto gaal iyo islaamba ma jirto nin wax kufsaday oo helay abaalmarin weyn. intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalka. haddii uu ku soo gaaray like dheh sidoo kalena share dheh ama copy linkiga noo taabo. waxaan kaloo idinka codsanaynaa Instagram-ka oo cusub yahay inaad follow naga soo dhahdaan adiga oo raacaya profile linkiga. mahadsanid.